maxay tahay dhacdada xanuunka badan ee ka hoosisay Marwo Faadimo Saciid iyada oo gabdhaha Soomaaliyeed ugu baaqday in ay ka fikiraan kana warqabaan caafimaadkooda. intaan ugu gudagalin sheekadan xisaab badan hadii ay tahay markii kugu horeysay aad soo booqato waxaan ka codsanaynaa in aad nagu soo biirto maasan. Marwo Faadimo Saciid oo kamid ah bulshada ku dhaqan magaalada Hargeysa waa hooyo Soomaaliyeed waxa ayna muddo 4 sano ku dhawaad la xanuunsanaysay xanuunka kansarka naasaha. Marwo Faadimo Saciid oo ka qayb galaysay munaasabad ka dhacaysay magaalada Hargeysa ayaa waxa ay ka sheekaysay xanuunadii ay soo martay iyada oo sheegtay in haweenka Soomaaliyeed looga baahan yahay in ay caafimaadkooda ka warqabaan. Marwo Faadimo Saciid ayaa waxa ay sheegtay in qalliin qaatay muddo 7 saacadood ku dhawaad ay gashay iyada oo dhibkaasi oo dhan u martay xanuunka kansarka naasaha oo ku dhacay waqti dambana ay ka war heshay in uu xanuunkaasi hayo. mar ay ka sheekeynaysay qisada xanuunka badan oo ay soo martay ayaa waxa ay sheegtay in iyada oo u maleysa in ay caafimaad qabto mar ay dhakhtar u aaday xilli ay rabtay in ay sameyso caafimaad guud ayaa waxa loo sheegay in ay qabto xanuunka kansarka naasaha. waxay ugu baaqday dumarka Soomaaliyeed ee ka yar da'da 40 sano in ay sameeyaan baaritaan guud si gaar ahna ay uga hortagaan kansarka naasaha ku dhaca oo haddii xanuunkan la helo ama la ogaado waqti hore daaweyntiisa ay fududahay. geeridu waa halkeeda laakiin maalinka aad ogaato in uu kansar kugu dhacay nolosha ka quusan oo ku dadaal sidii aad daawooyinkaaga ugu qaadan lahayd sida ugu saxsan. sidoo kale ku dadaal cunista cuntooyinka dabiiciga ah ee aan lahayn wax kiimiko ah ayay tiri Marwo Faadimo.